hadda waxa aad ku sugan tahay xabsiga dhexe ee xamar halkan waa goobta la sheegay in ay marayaan ehelada atooraha badda liido ninkii dilay Leelefow oo eheladiisa ay halkan marayaan sidoo kale waxa jooga ciidamo markaasi ka socda beesha uu ka soo jeedo atooraha badda liido iyaga oo gabi ahaanba ganafka ku dhuftay in goob caafimaad la geeyo Leelefow ahaa ninkii dilay atooraha badda liido tan iyo intii uu Leelefow dilay markaasi atooraha waxa ku furmay xanuun shoog ah kaasi oo uusan kala garanin cidda u timid iyo sidoo kale cidda ka tagtay wuu isku dhex yaacay isaga oo la sheegay in saxaro badan uu xabsiga ku dhex dhigay sidoo kalena ay cabsi fara badan soo wajahday kadib markii ehelada atooraha baddu ay sheegeen in waxa diinta islaamku ka qabta ay marsiin doonaan Leelefow oo ah in ay toogan doonaan Leelefow xaalkiisa caafimaad ayaa waxa ay sheegeen saraakiisha asluubta ee xabsigu inuu u baahan yahay caafimaad degdeg ah inta maxkamadda la soo taagayo balse waxa arintaasi oo dhan diiday ehelada atooraha badda oo sheegay in markaasi lagu soo wareejiyo wiilka oo ay toogan doonaan haddaba waxaan idin wadaagi doonaa xaalad la yaab leh oo ku soo korortay aan Leelefow oo ahaa ninkii dilay atooraha badda liido oo markaasi la sheegay inuu xabsiga xanuun daran ku qabtay sidoo kalena atooraha badda ayaa xabsiga gaaray ehelkiisa iyaga oo sheegay in markaasi aysan ogolaan doonin markaasi in laga soo saaro goobta haddaba saaxiibeel muuqaalkan like fara badan saara si bulshooyinka Soomaaliyeed uu gaaro markaasi haddii ay tahay markii kugu horeysay soo boqotana YouTube-kana subscribe saara gambaleelkana furo kuma hasanid aynu ku bilownaa saaxiibayaal saacadihii ugu dambeeyay ee maanta waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo sheegaya xaalad la yaab leh oo ku soo korortay ninkii dilay atooraha badda liido ee loo yaqaan Leelefow oo ahaa saaxiibkiisii Caysho Milaxa ay ahaayeen waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in markaasi Leelefow oo ahaa shakhsi markaasi sheegtay sidoo kalena qirtay inuu dilay atooraha badda markaasi uu shoog iyo xanuun daran uu qabtay tan iyo markii uu dilay atooraha badda waxa ay sheegeen xogo sirdoon oo ka tirsan booliiska Soomaaliya gaar ahaan leemta asluubta ee xabsiga sidoo kale ehelada atooraha badduba in ay jiraan qorshayaal halis ah oo la doonayo in markaasi xabsiga looga fakiyo Leelefow taasi oo lagu marmarsiinayo ayay dhaheen ehelada atooruhu in cadaaladda markaasi lagala cararo Leelefow waxa ayna sheegeen in dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah ay doonayaan in Leelefow laga dhigo qof xanuunsan oo markaasi xabsiga ku xanuunsaday markaasina la doonayo in markaasi goobta laga fakiyo oo markaasi ay doonayaan in markaasi sidaasi xabsiga loogala baxo balse ehelada atooruhu waxay sheegeen arrintaasi og yihiin waxayna markaasi baxkaxaysteen gaadiid ciidan iyagoo markaasina hor dhigtay xabsiga waxayna sheegeen inay doonayaan cidda doonaysa in markaasi Leelefow ay xabsiga ka soo saaraan laamaha booliiska Soomaaliya ayaa waxay ehelada atooraha badda u gudbiyeen in Leelefow tan iyo markii uu dilay atooraha badda xaalkiisu uu xumaaday gaar ahaan uu ku dhacay shoog ama maangareed wax la yiraahdo taasi oo qofka uusan kala garanayn cidda u timid iyo cidda ka tagtay isla hadal joogto ah iyo sidoo kale xaalad niyad jab ah waxaana wajigiisa laga dareemi karaa xanuunka ay leedahay arrintaasi iyadoo saacadihii ugu dambeeyay la arkayay Leelefow oo isla hadlaya sidoo kalena aan kala garanayn goobta uu ku saxroonay inay zuuligii tahay inay xabsigii tahay waxaana la sheegay in cuqubada dadka markaasi gaar ahaan ducadii iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee dan yar tahay ay caawin jiray markaasi ay ku soo duxday oo markaasi xaalad adag uu la kulmayo inta aan la dilin markaasi ama aan loo toogan atooraha badda xalay iyo habeen hore waxaa markaasi hooyooyin fara badan oo ah dadkii uu caawin jiray atooraha baddu ay habaar kala dul dhaceen Leelefow iyaga oo sheegay in markaasi musiibo degdeg ah Rabbi uu ku soo taago subxaanallah waxaana la wadaagi doonaa muuqaalo la yaab leh oo uu Leelefow markaasi ku waaninayo dhalinyarada Soomaaliyeed koor inta uusan khaarijin atooraha badda kuwaas oo qof kasta oo Soomaaliyeed fajac iyo ama kaag iyo la yaab ku noqotay in atooruhu uu sidaasi markaasi wax u kala ogyahay haddana tii qadarta alle ka sokow inuu ku bixi doono gacanta atooraha badda xaalka ayaa alla u sahla waxaana ehelada atooruhu baddu ay xaqiijiyeen in markaasi Leelefow aana sinaba xabsiga looga saari karin xataa haddii uu dhimanayo waxay sheegeen inuu xabsiga ku dhinto haddii cid tooganaysan inay ayagu tooganayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa la soo gaaray cisbitaalka maanta midka dhalinyarada Soomaaliyeed midka ugu aqliga badan wuxuu ka fikiraa sidee baa hees qurux badan u soo saar leh sidee baa talentigaaga banaanka u soo dhigi leh maba ku jirtaba wadankiiba kama fikiraayaba maskax uma haayo inuu wadankiisii dhibkan ku sugan yahay sidoo ku kala kicin lahaa niyad ma u haayo war ilaahay laga cabsado YouTube-yada iyo TikTok-yada iyo Facebook-yada iyo aad kala kicinaysaan ama magaca aad sameeynaysan waxa idinkaga qurux badan inaad wadankiini ka fikirtaan war idinka haddaadan ka fikirina cid ka fikiraysa haba yaraatay ma jirto odayaashan waa odayaal qaliila waa qorax sii dhacayso waa u dhamaatay waa sii baxayaan
waxa ka dhaxlaysaan ama waxa awlaadiina mustaqbalka idinka dhaxlaaya yeesan noqonin sumcad daro iyo musiibo war idinka ka fikiraayo magaca iyo talent sidee baad ku heli doontaa ka fikira